shirkadda Aslimayd ayaa waxay deeq biyo oo gaadhaysa 10 booyadood gaarsiisay dadka ay xoolahoodii ka farmaroojisay abaartii baanayd ee ka dhacday gobolka Saraar isla markaasina deegaanka ka barakacayaasha magaalada Caynaba waxaana ugu horeynba ka hadlay munaasabadaasi waxgaradka kaamamkaas iyo mas'uuliyiin ku hadlay afka shirkadda Aslimayd sidoo kale waxay sheegeen in shirkadani tahay shirkadda kaliya wax la qabatay waqtigani ay u baahnayeen gacan qabashada sidoo kale waxgaradkani waxay sheegeen in taageeradooda la garab taagan yihiin shirkadda Aslimayd oo muddooyinkii u dambeeyay curyaamin lagu hayay ganacsigooda bismillaahir rahmaanir rahiim mahad ilaahay baa leh mar labaadka waxaan halkan ku wareejinaynaa 10 booyadood ee aad arkaysaan biyahaas waxay ka yimaadeen wakiilka mas'uulka shirkadda Aslimayd wuxuu ka soo jawaabay baaqi reer Saraareed ay u direen xukuumadda iyo cid kasta oo caawinaysa dadka tabaalaysan ee ku nool kaamamka waxaan oran karnaa sida ugu dhaqsaha badan leh waa mas'uulkii u horeeyay ee ka soo jawaaba aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaynu ka warhaynaa shirkadda Aslimayd inaanay ahayn caawimadii u horeysay ay bixisaatan haday tahay masiibooyinkii ay ka tageen abaaruhu dadka barakacayaasha ah ee ku nool gobolada dalka inteeda badan caawimooyin badan oo hore ka geysatay iminkana maanta waxaynu joognaa kaamkii bariga ee Caynaba biyahaas waxay gaari doonaan labada kaam ee ku yaala magaalada Caynaba waxaanu ka haynaa shirkadda Aslimayd 10 booyadood oo biyo ah sida daraadeed marka hore mahad celinta Ilaahay baa iska leh oo mudan marka labaadna waxaanu mahad celinaynaa wakiilka ama hantiilaha Aslimayd kaasoo noola soo gaaray biyo 10 booyadood ah oo baahi weyn aanu qabnay haddaanu nahay labada kaam ee gobolka Saraareed ama Caynaba gudaha magaalada Caynaba biyahaas wayna soo gaareen waanaga hadda hor taagan ana shirkadii ugu horeysay oo shirkadaha wadanka jooga shirkadda kaliya ee noo soo jawaabtay ee si degdeg loogu soo jawaabtay ee biyo noo keentay ee noo soo dadaashay waayada waana tii ugu horeysay ee wax noo qabata keenan biyo macaan dadka kan ilaa iminka muddo biliyo siyaada amay arag biyaha weerka ee qaraad ee nugaasha ayuunba iminka u biyaha imka biyahana waxa weeyaan waa biyo burco taasi waa taa waxaanu kaloo ku soo dhaweynaynaa gobolka shirkadda Aslimayd oo ah shirkadaha caamka ah waana shirkadii koobaad sida ay u sheegay hore loogu sheegay shirkadii koobaad ee labadan kaam ee Caynaba wax aweymaha soo gaarsiiya alxamdulillah ilaahay ma mahadle shirkadda Aslimayd waxaanu ku soo dhawow gobolka Saraar shirkadda Aslimayd anagoo horaad iyo dhagadka joogna noo keentay biyaha waanu mahadnaqaynaa waxaanu leenahay haraad iyo baahi iyo mid walba waanu qabnay dhagadkaasaanu ku nabanahay allaadna ku gargaaro Aslimayd oo maanta dhibaato iyo haraad anagoo qabna noo soo gurmatay waxaanu ugu mahadnaqaynaa sida ay noo soo caawisan gacanteeda iyo adinkeeda noogu timeen ugu soo caawisay baanu ugu mahadnaqaynaa annaga oo ka codsanayna maalkeeda iyo awoodeeda iyo tamarteedaba inaanay nagala laabanay sida ay noogu soo gurmatay ay noogu wado baanu ayaanu ku mahad celinaynaa maanta sida ay gacanta noo soo siisay waxaan si weyn u hambalyeeynaa si weyn ugu soo dhaweynaynaa gobolka mulkiilaha shirkadda Aslimayd oo ah mulkiilii koowaad ama shirkadii koowaad ee u tabarucda ama ka damqata dhibaatada haysata dadka barakacayaasha ah ee degan magaalada Caynaba waxaanu ku leenahay Ilaahay ka jisaaisiyo abaalka aad geysatay oo mid akhriye iftiinka ku anfacaya soo runaya waxaan leeyahay mulkiilaha Barkhad Jibriil waa shirkadda kaliya ee gobolkan si degdeg ah dhibaatada uga soo qayb gashay waanu ku soo dhaweynaynaa waanu ku hambalyeynaa gamco furan baan kugu soo dhawaad mahadsan tahay waxa kale oo jira dad farafarayn ku haya shirkadaas
indhahaanu ku haynaa waana arkaynaa waana maqlaynaa dadka farafaraynta ku haya ee shirkadda daloolinaya de waxaan leeyahay adeer faraha ka qaada oo nin walowba wixii ay ku qabatana arag dhibaatooyinka iyo gardaamooyinka lagu hayana hal faraha laga shirkadda asli maydi ee xagga ganacsiga ee ka wada bariga gobolka Saraar bariba boqolkiiba boqol waxaanu leenahay wax loo daayo ganacsigeeda ma bacdanaaba ay soo gaarsiisay dadka maanta abaartu kicisay biyo macaan ay u keentay oo haqabliya si wanaagsan baana biyaha ay ugu shubtay waa Cabdiraxmaan Faysal Family Television ka caalamiga ee RTV magaalada Caynaba xarunta gobolka Saraar.